bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudano kusoo dhawaada warka cawayska bulshada waxaa galabta idin soo diyaarisay idinlana socodsiin doonto anigoo ah hodan xirsi qodobada wararka ugu waaweyn waxaa ka mid ah xuska maalinta cadaaladda oo jigjiga lagu qabtay dowladda Kenya oo dalbatay in Cabdiqawi laga saaro dhageysiga kiiska badda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo kulamo ka wada degmada Dhuusamareeb wasiir Cawad oo la kulmay wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya intaasi waxay ahaayeen wararkii oo kooban haatanna warkii oo fidsan waxaa magaalada Jigjiga lagu qabtay xuska maalinta cadaaladda xuskan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda u sareysa dawladda oo horkacayo madaxweyne Mustafa Cagjar mas'uuliyiinta hay'adda cadaaladda iyo marti sharaf kale madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cagjar oo munaasabadan xuskan ka hadlayay ayaa sheegay in hadda ka hor deegaanka ay ka jirtay cadaalad darro badan isla markaana deegaanku uu soo maray xilli hantida dadka iyo naftooduba gacanta ugu jirtay hal shakhsi ama shakhsiyaal gaar ah oo ay siday doonaan ay ka yeeli jireen taasna aysan maanta ka jirin mar uu ka hadlayay dhanka xorriyadda waxa uu sheegay inay jiraan dad ka soo horjeeda xukuumaddiisa balse aan wax dhib ah loo geysanin waa sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii madaxweynaha waxa uu hadalkiisa intaa ku daray inay jiraan jileec ka muuqda maxkamadaha deegaanka oo hoos loo dhigi doono adeega ay dadweynaha u fidiyaan shacabka deegaanka ayaa waxa horey u soo maray dhibaatooyin kala duwan iyaga oo naftooda iyo hantidoodaba waxyeelo badan loo geysan jiray balse ilaa iyo hadda aysan si buuxda u helin cadaalad dhameystiran ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo gelinkii dambe ee maalintii shalay gaaray degmada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dawlad goboleedka Galmudug ayaa bilaabay kulamo kala duwan oo qayb ka ah dhismaha Galmudug loo dhan yahay wararka ka imaanaya Dhuusamareeb ayaa sheegaya in ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre saacadihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan la lahaa madaxda ahlu sunna ee ku biiray maamulka Galmudug kuwa oo dhawaan dood ka keenay heshiiskii ay la galeen dawladda Soomaaliya socdaalkan ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre socdaalkan ra'iisul wasaaraha uu mar kale ku tagay Dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa dadaalada la doonayo in lagu dhiso Galmudug loo dhan yahay iyo sidii looga qancin lahaa hoggaanka ahlu sunna wal jameeca oo dhawaan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay dawladda Soomaaliya heshiiskan ay u waday amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana halkaasi ku sugnaa ciidamada amniga magaalada Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyay waxaana halkaasi ku wada sugan ciidamada dawladda Soomaaliya oo isugu jira military police iyo nabad sugidda iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan Amisom oo ka kala socda dalalka Djibouti iyo Ethiopia kuwaasi oo amniga si weyn u xaqiijinaya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa kula kulmay Muqdisho wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ahna madaxa howlgalka kaalmada qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan labada mas'uul ayaana la sheegay inay kulankooda ay uga wada hadleen iskaashiga u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay si loogu adeego Soomaaliya waxa kale oo isla falanqeeyeen xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda iyo nabadgelyada dalka wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah waxa uu mar kale ku celiyay taageerada dalkiisa u hayo dawladda dadaalada wakiilka gaarka ah iyo qorshaha howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya dawladda Kenya ayaa dalbatay in dhageysiga wajiga labaad ee dacwadda badda laga saaro Cabdiqawi Axmed Yuusuf oo ah shakhsi asalkiisu Soomaali yahay maxkamadda waxaa dacwadda u gudbiyay gudoomiyaha madasha Banka Afrika David Masanga waxaana uu doonayaa in uu muujiyo in garsooraha ugu sareeya maxkamadda ICJ Cabdiqawi Axmed Yuusuf uusan sharci ahaan ku haboonayn kiiska maxkamadda ka bilaaban doona 9 bishan codsigiisa ayaa Masanga waxa uu ku sheegay in garsooruhu uu meel kaga hadlay kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya taasoo keentay khilaaf dan ku salaysan maadaama uu garsooruhu yahay muwaadin Soomaaliyeed natiijo aan dhexdhexaad ahayn
oo eex ah ayaana kiiskan ka dhalan doonta sida uu sheegay ninkan kiiska geeyay maxkamadda. Dan ayaan ka leenahay kiiska maadaama ay ku lug leeyihiin dalal u dhashay bariga geeska Afrika, ayuu Masanga ku sheegay qoraalkan uu maxkamadda geeyay.